السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب سودو وان كاغا mahadcelinaya waqtigaaga inaad qaybiga siiso. Waxaan jeclaystay inaan talo kooban siiyo qof kasta oo dhalinyaro ah oo 18 ilaa 28 daadiisa u dhaxayso. Runtii daadaasi waa daa muhiim u ah qofka koritaankiisa iyo mustaqbalkiisa dambe qaabka uu maareeyo. Waana daada inta badan qaabaysa noloshaada dambe qaabkaad u noolaanayso, qaabkaad u fikirayso dhammaanteed saameyn weyn ku leh. haddaba waxaad ogaataa in faculty-ga iyo kulliyadda aad dhiganayso jaamacadaada aanay suuqa inta badan shaqada saameyn ku lahayn. waxaan uga jeedaa yacni daraasadii ugu dambeysay la sameeyay xagga suuqa shaqada waxay sheegaysaa qofku 80% dadka shaqeeya inaysan ku shaqayn waxay soo barteen, taasoo macnaheedu yahay in qofkani xirfado kale uu lahaa iyo waxyaabahaas ama shaqada dhexdeeda lagu train gareeyo inuu ku shaqeeyo. maxaa muhiim ah daba? waxaa muhiim ah inaad shaqadan aad qabanaysaa inaad aqoon iyo xirfad iyo karti u leedahay inaad ku qabatid. sidaa daraaddeed waxaa kaa saacidaysa qof kasta inuu aqoonta uu baranayo markasta ay ku lamaan tahay in uu xirfad kalena leeyahay. taasaa macna kuu samaynaysa, taasaa suuqa markasta saameyn ku leh, waana tajaan goynaysa inaad mustaqbal fiican yeelato oo aan marnaba dhulka ku dhicin.